السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبada qiimiga iyo qadarinta mudan aad baan idin salaamaya meel kasto daafa caalamka aad ka joogtaan soo dhawaada saaxiibayaal sixiroolahan idin muuqda waa Kenyan wuxuu gacanta ku hayaa waa laba sawir wiil iyo gabar Soomaaliya wuxuuna ku sameeynayaa sixir talooyay tahay cidda sawiradan u keentay ninkan sixiroolaha ah hora loo yiri sir maqabe saab ayaa biyo celshaani xog ku saabsan guud ahaan muuqaalkaas ayaan kula wadaagi doonaa halkan idin muuqata waa xaafada Westland caawa ceebti adduunka ayaa ka dhacday waxaynu ku guda jirnaa bishii barakeysneed ee Ramadaan waxaynu ku guda jirnaa 10kii dambe ee Ramadaan haddana halkan waxaa lagu soo qabqabtay gabdho iyo wiilal Soomaaliya oo sameynaya ficil aad u fool xun balwad nooc walba ahaatana istaaga ka cabay kana cunay booliska ayaa gacanta ku soo dhigay hadii aad maqli jirtay Allah ceebta astur ceeb ma asturno xog ku saabsan guud ahaan muuqaalkaasna waan kula wadaagayaa alaabtan waxa la yiraahdaa numberka e-bobsi indhaha ayaa badane muuqaalkaanse waxa dubay dhalinyaro fara fudud xilligii tahajjudka ayaa waxay jaanis u noqotay dadkii maqabiyada ahaa ee guriga ku jiray maxaa halkaasi ka dhacay xog ku saabsan guud ahaan muuqaaladaasi ayaan kula wadaagi doonaa inta aan soo guda galin hadii ay tahay booqashadaad igu horeysay waxaynu si xushmad ku dheehan tahay kaga codsanaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe noo saartaan sidoo kale waxaynu si xushmad ku dheehan tahay kaga codsanayaa qof walba oo muuqaalka daawanaya bal inuu laagta iyo share soo keendaro si guud ahaan muuqaalkeena uu gaaro bulshada Soomaaliyeed alaaba way kaga mahad celinaya tixgelinta codsiga ka dhanka la gareenta iyo shargareenta Allah idin sharfay soo dhawaada halkan idin muuqata waa xaafada Westland caawa ceebti adduunka ayaa ka dhacday waxaynu ku guda jirnaa bishii barakeysneed ee Ramadaan 10kii dambe ee Ramadaan ee cibaadada in loo istaaga ee mudneed lagana faa'iideysto lagana amal qaato la goobo la baadi goobo habeenka leelatul qadarka haddana halkan waxa ka dhacday fal fool xun wiilal iyo gabdho Soomaaliya oo balwad noocay ahaataba istaaga ka cabay kana cunay ayaa laamaha amniga gacanta ku soo dhigay hadii aad maqli jirtay Allah ceebta astur caawa ceeb ma asturno bal marka hore muuqaalka asla daawano lazima tusaidie jamii. And right now this is the Ramadan, hii ni mwezi mtukufu wa Ramadan. And what I know the last 10 days is when you need to pray. Because as you wait for the powerful night of Turkana. Kama inapoanga. Yeah, we need to pray. Not to be smoking and disturbing neighbors. I received a complaint from a neighbor who lives around there. They smoke and in a house. That's the air pollution. So that's why I'm here. Yeah, so mwambie hiyo moshi wazime kwanza mpaka tumalize Ramadhani. Yeah, wazime. Wewe mzee, huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nini unafanya? Now the last 10 days are very important for the Muslim community. As we wait for the powerful night of Laylatul Qadr, what are you doing now? Do you care about your neighbor? Huyu weka yeye ndani huyu. Nani? Huyu, achukuliwe mweke yeye ndani. Yeah, we don't encourage this. This is mwezi ya Ramadhan. Mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hakuna mtu anaruhusiwa kuhesabu neighbor. As you are waiting for the powerful night of Laylatul Qadr. Haina shida. Hata kama mimi nafikia mheshimiwa haja kuruhusu ufunje sheria. Weka yeye kwa gari hiyo. Rangi uende. Na wapi hapo? Rangi hapo kono. Na pia anauza hizi mashisha na mamoshi ku disturb neighbors. Huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, hataki mtu adisturb neighbor yake. Tumepata complaint mingi kutoka hapa. Hapa chini anapiga kelele na moshi na neighbors wanakaa juu. Wende Mrangi. Mrangi. Wall Street. Unaenda huko. Leo
ikiwa ni siku ya Ijumaa kuamkia Jumamosi. Tumefanya operation ya noise pollution pale Westlands, Roysambu, Dono. Ile shida tumepata ni kwamba wenye maklabu wameamua kupiga kelele kwa residential area. Wanafungulia sauti, unapata first floor ni club, third floor, fourth floor ni watu wanaishi. Hiyo sio haki. Ila hali wanafaa kwenda mahali ambayo iko zone for night club. Umoja, hiyo shida imejaa. Mirema Drive, Roysambu imejaa. Westlands pia tumekumbana na hiyo shida. Kwa hivyo tunaomba wananchi wa Nairobi, tafadhali, if you have to do business, if you are a club owner, if you are a bar owner, please don't make noise in a residential area. Just soundproof if you have to play loud music. Kisha kwamba mahali unataka kuweka hiyo club hakuna neighbors wata complain, hakuna noise pollution itatokea hapo, so that neighbor waishi vizuri, majirani waishi vizuri na wewe. Na hiyo ndio njia tu tutakuwa na usalama Nairobi, tutakuwa na ile peaceful environment Nairobi, ili majirani waweze kuishi kwa amani kwa ile njia ambayo inafaa. Gaaladii ayaa afka gacanta saartay oo tiri miyaadan ahayn dad muslim ah, waxaad ku jirtiin bishii barakeysneed ee Ramadaan, haddana waxaad sameynaysan falkan foosho xun. Kaaga darana waxay cabayaan marka laga tago qamriga, xashiishka, shiishada, haddana dadkii deriska ahaa ayaa ka hoyan waayay. Kadib ayay waxay waceen laamaha amniga, balse halkaasi loo soo gaaro dadkaana gacanta loogu dhigo. Maamulka halkan dhacdada ka dhacday ayaase lagu amray inta ay ka dhamaanayso bisha barakeysan ee Ramadaan in gabi ahaanba albaabada loo xiro. dadka halkaasi lagu qabtay ee isugu jira wiilal iyo gabdho Soomaaliya ayaa dhamaantooda muuqaalo laga duubay, halka qaar kamida la fasaxay, intii kalena xabsiga ayaa loo taxay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. bishii barakeysneed ee shaydaanka xirxirnaa xataa shaydaanul insi ayaa halkaani ka buuxay. alaabtan waxaa la yiraahdaa numberka EBOC indhaha badane. muuqaalkan waxaa duubay dhalinyaro faduulinaysa wiilka gabadha la taagan. maxaa halkaasi ka dhacay? bal marka hore muuqaalkooda aan isla daawano. umada mujidi akhayr dad salaad dukoyn laakiin odayaas ma isbay jadu Allah jadiji kaasoo dhalinyaradii Soomaaliyeed ee tahajjudka aadayay mid walba wuxuu wataa telefoon smart ah, ekisiyon no berdaro wax yar haddii uu arko wuxuu bilaabayaa inuu muuqaalka diyaariyo kana duubo. wiilka muuqaalka laga duubay ee la leeyahay gabadha wuxuu ugu tagay inuu number ka soo qorto. waxaa laga yaabaa inay tahay walaashiis asaga la dhalatay. tahajjudku dad badan ayaa aada, masaajidkuse aad ayuu u buuxsamaa. waxaa laga yaabaa inay ku ballamayeen halkii isku istaagi lahayn si ay isugu weeshadaan dhanka guriga hal marna ay wada tagaan. waxaa kaloo suuragal ah in gabar in muddo ah oonan arag inay tahay, waliba ay ehel dhow yihiin, qaraabo yihiin, asxaab yihiin, laga yaabo inay xiriir leeyihiin. si kastay ahaato haddana muuqaalkan dhalinyaradan duubtay waa ay faduulinaysay wiilka, laga yaabee inay aqoon buuxda u leeyihiin. muuqaalka xiga sixiroolahan idiin muuqda waa Kenyaan, wuxuuse gacanta ku hayaa laba sawir, wiil iyo gabar Soomaaliya, wuxuuna ku sameynayaa sixir. bal marka hore muuqaalka aan daawano. Asalamu alaikum. Kama umekuwa ukisumbuana na mambo ya ndoa na mapenzi, uko pale umeachwa na mwanamke wako, umeachwa na mume wako, saa hii hakutaki, ama mpenzi wako mlianza chini, saa hii hataki maneno yako, kuna mtu ameingilia kwa ndoa yako na kuharibu, hakuna amani, na wewe bado ingali unampenda, unataka kuregesha mapenzi yaliyofifia, unataka kuregesha upendo yote iweze kurudi kwako. Naitwa Daktari Wenje. Hali kokote kule ambako uliko, tunafunga namna hii. Unafunga katika mafungo 12.
mwanaume atatulia. Kuna mpango ya kando imeingia kwa ndoa yako na kuharibu. Hakuna amani, hakuna upendo, ile mapenzi imepotea. Nawe unataka kuregesha ile mapenzi irudi moto. Tunafunga namna hii katika mafungo 12. Mwanaume atarudi, mwanamke atarudi. Mashida yote ya ndoa ambayo yamekuwa yakikusumbua, kila kitu kwa upande ya ndoa, mambo yako yote yataenda vizuri. Tunafunga, nipigie tu simu mahali kokote uliko, namba yangu ni utasaidika. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un. haddii aad maqli jirtay sir maqabe saab ayay biyo celshaan waa wiilkan iyo gabadhan Soomaaliyeed. haddaba ninkan sixiroolaha lama yaqaano cidda dhabta ah ee u keentay wiilkan iyo gabadhan sawiradooda. ninkan wuxuu ka hadlayaa shaqada uu qabto. wuxuu yiri haddii aad qof jeceshahay ka walwalsan tahay inaad weydo ama aad heli weydo, aniga ayaad ii imaanaysaa, waliba kuu qabanayo shaqadan ah in indha aan adiga ahayn uusan lahaanin, yuusan gabar kale eegin. gabadhaad jeceshahay haddii aad ka walwal qabto ee nin kale kaa raacdana, anigii imow, waxaan kuu ballan qaadaya inaan kuu sameeyo sixir indhahaaga midaan ahayn inaysan ragga kale ka dhex arkin. inta badan waxaan ka jaray muuqaalkan nambaradiisa faahfaahinta oo halkan ku bixinayo. fadlan waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa haddii aad wiilkan iyo gabadhan Soomaaliyeed bargaratay, aqoon aad u leedahay, inaad muuqaalkan la share garayso, balse wiilkan iyo gabadhan aad loogu dadaalo, waliba quraan tiro badan loo saaro. muuqaalkan sababta aan idinkula wadaagay wax kala maahan. markii aan arkay waxaan aad kaga naxay, waliba aan aqoonsaday wiilka iyo gabadha sawiradooda inay yihiin wiil iyo gabar Soomaaliyeed. Soomaalidu way isbartaqaanaa, haddii aftirsadana waa ehel iyo qaraabo, ilmo adeer iyo ilmo abti. fadlan aynu maanta badbaadino wiilka iyo gabadha Soomaaliyeed. fadlan qof walba waxaan si naxariis la kaga codsanaynaa muuqaalka inuu share gareeyo, qofkii bartaqaanana uu la wadaago. ilaahay waxaan ka baryaynaa balaayada ninkan uu ku sameeyay wiilkan iyo gabadhan inuu ilaahay hareer mariyo. waxaa lagu guda jiraa 10kii dambe ee Ramadaan. ilaahay waxaan ka baryaynaa balaayada uu wiilkan iyo gabadhan u sameeyay inuu ilaahay ku shartiro. inta u xanuunsan xanuunada noocan oo kale ahna ilaahay waxaan kaga baryaynaa caafimaad degdeg ah inuu siiyo. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. haddayse tahay booqashadaad igu horeysay mar kale iyo mar xiga, waxaynu si xushmad ku dhaantahay kaga codsanaa walaal inaad nagu soo biirtaan oo aad channelka subscribe inoo saartaan. sidoo kale waxaynu si xushmad ku dhaantahay kaga codsanayaa qof walba oo muuqaalka daawanaya bal inuu laagtay ishaarti soo keendaro si guud ahaan muuqaalkeena u gaaro saaxiib adigu kale qalbi wanaagsan. muuqaalkan mid lamid ah inta kulmi doono waxaan idinkaga tagay. assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ramadaan mubaarak.